sanadii ay shaqada bilaabeen ciidanka debdemiska oo ahayd 2014 ayaa 120 dab oo ka kala kacay gudaha magaalada Hargeysa ay gubeen goobo kala duwan. sanadkan aynu bishiisii sagaalaad ku jirnaa tirada dabka ee kacay waxay maraysaa 350 gubasho oo u badan guryo iyo meherado sida ay noo xaqiijiyeen taliska ciidanka debdemisku. waxaa masiibooyinkaasi u dambeeyay guri uu dab qabsaday habeennimadii Axaddu ay soo galaysay ee toddobaadkan oo 4 caruurihii ay ku naf waayeen hooyadoodna ay dhakhtarka imaka taalo. sanad ka dambeeya wuxuu dabku u sii koraya magaalada sii balanaanaysa. أول من الهاجرين وحنا وايرو لين أدركتي إصدح يعسل مجال دح يعسل جاستن جريها راشيك لو كرسدو من الهيسن إمك إلا تضبط سيدنا دعوة إنه جريها النوي يرو لين الشغلات بخور حدي أنو تجني توحي نقطة بالك هانتي وفرن أي استرستا إنتو حاجة إنه كفرتي شد ماكو ساو شد منا هلع قرح باسمس kuwani waa gaadiidka ciidanka debdemisku isticmaalaan oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa 13 gaari ilaa 300 oo shaqaale ah oo u tababaran debdeminta ayaa iyaguna ka hawlgala. haddana dadweyne waxaa jira marka ciidanku dabka deminayaan sheega in ay ka soo daaheen. anigu diyaar baan haddii imka sanqad telefoon noo yeedho waniga wada gashan dharkayga iyagu wada gasheen gaariga waan kaxsanayna telefoonkaygu waa 9 birsaan u sheegnay laakiin dadweynuhu hadee jeer waxay soo diraan 999 markaan meesha tagnay dhagaxaan ugu shidaan war maxaa noo sheeganaysan waxay kuna soo habsaanteen oo goorma dab ku dhacay deen saacad ka hor oo maxaad nagu yeedhiseen 3 sagaalaad dadshini baad u yeedhiseen dabdami Soomaaliyeed 990 baad nagu yeedha. waxa ciidanku ay xuseen in caqabad ay ka haysato sharcigii debdemiska oo imika hor yaala golaha wasiirada dhawaana loo gudbin doono golaha baarlamaanka oo aan se wali la meel marin. waxana ay aaminsan yihiin ciidanku inuu wax badan uu ka caawin lahaa xakamaynta dabka iyo sababaha keenaba maadaama uu xeerkani uu yahay kii qaban lahaa dambiilaha dabka sababay. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa.